عطوش عبد العزيز عطوش وكسر يقول يا يحيى اسمه وحا وسمانيا صوماليا مركن عبد العزيز عطوش وكان مركن ورا يكجران صوماليا ولي يقع يسكبتي يس نو واي مركاسي مرتقى تسر غوشا ayaana la dhigaya gool ayaana soo shaqo galin doona yaaysa waa kan farxaan duqow saaxiibka ayuu la ciyaaray duqow ayaa wara duqow waa kan farxaan waxay martay banaanka iyana waxa la dhigi doona goosha waxa soo shaqo galin meel waxan waa kan markan fursad qaaliya cross gool Somalia goal فيصل احمد فيصل يا دليني جولكي كواد عيارتا فيصل احمد يا دليني جولكي كواد عيارتا صوماليا جول جيبوتي ابر صوماليا جول جيبوتي ابر فيصل احمد يا جولكي سلبات قرون كان كدلينيا فيصل احمد يا جولكي سلبات كدلينيا هلكن qaranka Soomaaliya ayaa goolku hogaaminaya ciyaarta taar markan Djibouti ayaa qabsatay si wacan ayaa lagu gooyay Soomaaliya waa weerar markan qaranka Djibouti ayaa weerara waa kan markan lagu dhaqaatay Djibouti Soomaaliya waa weerar markan farxaan duqow farxaan waa u gala farxaan karaaso Djibouti ayaa iska saaray kubadda halkii uu ka dhaliyay Ethiopia ciyaartooyga lagu magacaabo Faisal Ahmed lambarka 7 ciyaartooyga Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa yimid isla markaana waajibaadka qaranka wadankiisa gudanaya ee Faisal Ahmed waa halkii uu ka dhaliyay laakiin waxa tuuranaya xidiga lagu magacaabo Cabdicasiis Maxamed Catoosh dheemanka qaranka Soomaaliya Catoosh ayaa tuuraya markan waa kan Cabdicasiis Maxamed Catoosh Cabdicasiis Catoosh waxa ka badbaadinaya goolaya Yaxya fursad qaaliya markan waa Soomaaliya markan Ali waa kan markan waa kubadda Alisa Djibouti waa soo tuuran Soomaaliya waa iska saartay goolaya Saciid Aweys Ali ayaa gacanta ku dhigaya xulka qaranka wadanka Djibouti cajiib lambarka 8 si wacan ayuu farsameystay waa kan ciyaartooyga lambarka 8 oo ku dhax qaadanaya waa kan Trubas dhaxdii bacaan ayuu sameeyay laakiin dhaxda ayuu galan Soomaaliya waxa ay markan ciyaartooyga lambarka 8 gactaani caajibano meel wacan ayaa la dhigay weerar markan Faisal Ahmed Faisal cajiib waa u gooyay Faisal markale Soomaaliya waa ciyaareen Catoosh waxa loo celinayaa dib markan waa dhibtaan markan Soomaaliya waa laga galay Djibouti waa kan Djibouti goolaya Saciid Aweys Ali alla maxuu taariikhda caawga Djibouti ayaa tuuranaysa markan Djibouti goolaya gacanta ku dhigay Djibouti waa kan banaanka ayay martay kubadaasi waxa ay kubadda Alisa laakiin ma aysan u suuragelin jamhuuriyadda qaranka ee Djibouti inay dhaliyaan waa laga soo saaray kubadii Djibouti ayaa iska soo saaraysa Ali ayaa haysta markan Ali waa ku dhax qaatay Ali waa kan markan Ali Soomaaliya wali Cabdicasiis Catoosh Faisal gool Soomaaliya ayaa goolka labaad la timid qaranka Soomaaliya ayaa dhalinaya goolka labaad ee ciyaarta xulka qaranka Soomaaliya waa dhaliyeen markale doonila ay sheekadu noqotay Djibouti حالكم اسكن Djibouti عاوة حالكم هاجسنا Djibouti عاوة وحبا كقلدن عيارتو إذا قرنك Djibouti عاوة
waxbaasika ciyaartooyda qaranka Djibouti ciyaartooyda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya goolka way dhiibteen kubadii waa kan markan Cabdicaziz Maxamed Catoosh Cross Ismaaciil Trinil Ismaaciil ayaa dhalinaya goolkii saddexaad ee ciyaarta Ismaaciil ayaa dhalinaya goolkii saddexaad ee ciyaarta Soomaaliya 3 gool Djibouti eber Soomaaliya 3 gool عوامين كرو تاريخية عوامين كرو ديوان كلو قردونو عوامين عيارتوز الصومالي ذو إلى بدون عوامين كي مقدشو عوامين كي صوماليا عوامين كي قروي عوامين كي كسمايو عوامين كي جليب يا جمامة ويا شكل وسدح جول يبر صوماليا يا كورك عيسى بعد مركن وكان مركله فرصة في عن جيبوتي والله قساري وايد جن أفكاري بنفسي عيال غني يا ما مكاسي جول كرات قرن كصوماليا بنفسي عيال مركاسي لغني بانو عبد الله يا مركاسي ديني تقناع كل احتلافي وياي مركان لمبرك السقالات ايا سوق لي جمهورية جيبوتي عبدعزيز عطوش يا بيحدونا علامة كابتن نمايا انا لو حري عيارتوي قالوا مقعاو بانو عبد الله يا علامة كابتن نما لو حري ee qaranka Soomaaliya waxa soo baxay Cabdicaziz Maxamed Catoosh ayaa soo baxay Soomaaliya 3 gool Djibouti eber gool kulaad ay Djibouti u taagan tahay markan waa kan ciyaartooyga lagu magacaabo Axmed fursad fiican جيبوتي يا لتمد الجول وجول كلادا وأنا شاكد وين قنيسة 3 جول يا جول يا شاكد ونقنيسة جول كلادا يا دليل جيبوتي والله قرر هو كان فيصل